السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم waa maalinimo khamiis ah 19 bil saddexaad 2026 waxaan kan kugu soo koobi doonaa dhacdooyinkii ka dhacay bariga dhexe 24 saac ee la soo dhaafay waxaan ku jirnaa xalal ka duwantii hore Iiraan ayaa markii ugu horeysay wadnaha goysaydii dhaqaalaha qaliijka xilli Trump uu isku dayay inuu gacmaha ka qabto Israa'iil dhanka kale waxaa soo baxaya su'aalo cusub oo ku saabsan cidda dhabta ah ee maanta maamusha Israa'iil Netanyahu baa mise waa qof asagii loo ekeysiyey shatiga ku saabsan bilqabka Netanyahu ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay kadib weeraradii sirdoon ee Iiraan ay ku beegsadeen xafiisyadiisa waxaa soo baxaya warar sheegaya in Netanyahu laga yaabo inuu geeriyooday ama uu ku jiro xaalad dhimasho ah xooga sirdoon ayaa muujinaya muuqaaladii ugu dambeeyay ee lagu baahiyey barta X oo uu la joogay safiirka Mareykanka u fadhiya Israa'iil Marco Kabe waxaa lagu arkay cilado dhanka AI-ga ah ama deepfake khubarada sirdoonka ayaa rumaysan Israa'iil hadda isticmaalayso qof u eg ama waxa loo yaqaan bootable ama digital twin si looga hortago in nidaamka Israa'iil uu dimo Trump guddiisa ayaa lagu soo warramayaa inuu dareemayo niyad jab kadib markii uu ogaaday in Netanyahu uu qaadayo tillaabooyin iskiis oo uu dagaalka ku sii dheeranayo taasoo loo arko isku day waqtiga lagu dheereysanayo dagaalka tamarta maxaa ka dhacay Ras Lavan iyo South Paris jihada dagaalku waxay si rasmi ah ugu weecatay xarumaha tamarta kadib markii Israa'iil ay weerartay kaydka gaaska Iiraan ee South Paris Iiraan waxay jawaab kulul ay ka bixisay weerarkaas ku beegsatay gudaha Qatar Sacuudiga iyo Imaaraadka haddaan fiirino Qatar magaalada warshadaha ee Ras Lavan ayaa xalay gubanaysay kadib markii lagu dhuftay gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliye lahayn Qatar waxay isla markiiba 24 saac gudahood dalka uga saartay dhammaan saraakiisha militariga ee safaaradda Iiraan dhanka kale carabta ayaa carootay dalalka khaliijka ayaa u sheegay Wall Street Journal inay ka caroodeen Mareykanka oo ka gaabiyay in Israa'iil ka hortago intaysan fulin weerarkii South Paris kaasoo iyaga ka dhigay bartilmaameed sax Trump ee xalay soo jeediyey wax loo kala garan waaya cabaad iyo digniin wuxuu ku cataabay ama ku dhawaaqay Iiraan ha joojiso weerarka tamarta khaliijka innaguna waxaan gacmahan qaban doonaa Israa'iil taasoo ka dhigan inay durbaba gilgishay jawaabta Iiraan gudaha Mareykanka iyo dhammaan dhaqaalaha caalamka iyo qalaasaha gudaha Mareykanka iyo silsiladda madax sare madaxweyne Trump ayaa wajahaya hoos u dhac xooggan oo xagga taageerada ah codbixin cusub ayaa muujinaysa in 59% dadka Mareykanka ay ka soo horjeesteen sababtoo ah sicir bararka shidaalka ka dhashay dagaalka Iiraan amniga caasimadda Mareykanka ee Washington ayaa la xoojiyey kadib markii diyaarada aan duuliye lahayn lagu arkay hawada sare ee saldhigyada ay degan yihiin madaxda sare ee dalka sida Marco Rubio iyo Hegseth maalmo ka hor waxaa is-casilay agaasimihii la dagaalanka argagixisada isagoo ku eedeeyey Israa'iil inay Mareykanka ku riixayso dagaal been ah oo la mid ah kii Ciraaq Trump ayaa markaa ku sifeeyey Keynta inuu yahay nin aad u daciif arrintan ayaa muujinaysa in walaac fara badan uu ka jiro gudaha Mareykanka howlgalka Mareykanka dhulka iyo in Mareykanku 5,000 askari u diray Iiraan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay in Trump uu qorsheynayo in 5,000 askari oo gaar ah laga dejiyo xeebaha Iiraan si kastaba ha ahaatee khubaro sare oo dhanka amniga ah ayaa ka digay intanay tahay howlgal ismidaamina wuxuu sheegay in Iiraan ay burburin doonto saldhig kasta oo looga soo duulo gaar ahaan haddii laga soo maro dhanka Azerbaijan wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal bin Farxaan ayaa si kulul u weeraray Iiraan isagoo yidhi gacan walaaltinimo ayaan u fidinay Iiraan waxay noogu bedeleen gantaale ay nagu garaacaan Sacuudiga wuxuu sheegay in kalsoonidii dhimatay ayna xaq u leeyihiin inay si militari uga jawaabaan weerarada lala beegsaday Riyaad iyo xarumaha shidaalka safaaradda Mareykanka ayaa xitaa muwaadiniinteeda ugu baaqday inay ka baxaan Sacuudiga agaasimaha sirdoonka Tulsi Gabbard ayaa sanadka u sheegay in Ruushka Shiinaha Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan ay hormariyeen gantaale casri oo gaari kara gudaha Mareykanka Gabbard waxay ka digtay in dilka Cali Khamenei waa istiraatiijiyad qaldan oo kicisay dareenka Karbala iyo Imaam Xussein taas oo Iiraaniyiinta ka dhigtay kuwo aan laga guuleysan karin dhanka nafsiga kale maalmihii u dambeysay waxaa yaraday gantaalada ay ridayso Iiraan khubarada militari ayaa rumaysan intan aysan ahayn daciifnimo Iiraanna ay weli haysato 80% kaydka gantaalada ardada dheer iyo kumanaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxaa jira xeelado dadku waxay isweydiinayaan waxay u aamuseen ma u yareeyeen weeraradii dhanka cirka ee Israa'iil laga fulinayay iyo kuwa kale ee khaliijka inkastoo weli ay jiraan maadaama Lubnaan ay ka socdaan dagaal dhulka ah Iiraan waxay fursad siinaysaa Xisbullah iyo ururada gobolka si ay Israa'iil ugu jiraan dagaal dhigbax waxaa loo yaqaan war of attrition kaydinta hubka Iiraan waxay u muuqataa inay diyaarinayso mawjad labaad oo ka culus kuwii hore haddii Mareykanku si toos ah u soo galo dhulkeeda dadka qaar ayaa isweydiinaya sababta warbaahintu u buunbuuninayso ama ay u wado weerarada iyo dhibaatooyinka soo gaaraya gudaha Tel Aviv iyo dalalka khaliijka iyadoo Tehran sidoo kale ay ku socdaan weeraraha loo meeldayin waa run Tehran waxaa soo gaadhay dhib weyn oo dhanka kaabayaasha ah laakiin nidaamka hoggaanka ee godadka dhulka hoostiisa
ayaa weli ah mid aan la taaban. Iran waxay leedahay magaalooyin loo yaqaan magaalooyinka gantaalada oo ku yaala dhulka hoostiisa, sida tuunalo waaweyn, meelo la dhigi karo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Gabagabadii, Iran laguma jabin dhanka hubka, laakiin waxaa lagu sifeeyey libaax dhaawacan oo hadda ka fekeraya meesha uu ilkaha ka gelin lahaa. Ma Netanyahu baa dhintay? Ma Iran baa gantaalada u dhiganaysa saacadaha ugu dambeeya? Xaqiiqdu waxay ku xiran tahay maalmahan soo socda. Saaxiibkan Bakar Shaadiri, dib soo gaara muuqaalkan la wada saaxiibadaada, naguna soo biir oo ka mid noqo malaayiinta qof ee nagu xiran. Salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.